Enzo Maresca waa nin ka soo jeeda Talyaaniga waxaa loo magacaabay shaqada kooxda Chelsea kadib xilciyaareed qurux badan oo kusoo qaatay kooxda dabacooyinka kasoo dalaacday heerka labaad uuna keenay horyaalka Premier League. Sheekada ninkan aan soo qaadan doonaa maxaa laga ogyahay taariikhdiisii hore kubadda cagta halkee ayuu ka ciyaari jiray, siduuna ku ahaa ciyaarista kubadda cagta kooxuhu soo maamulay dhammaan sheekooyinkaas ayaan soo qaadan doonaa. Waa 44 jir dhashay Febraayo 10keedii 1980 waana mid ka mid ah ciyaartooyda Talyaaniga kasoo ciyaaray horyaalada kala duwan kasoo xamaashay. Waqtigan ayaa loo magacaabay kooxda Chelsea. Wuxuu ku dhashay Pontegnano Fabian oo qaybka gudaha Talyaaniga. Wuxuu ahaa ciyaaryahan ku wanaagsan ciyaarista kubadda cagta wuxuuna ka ciyaari jiray khadka dhexe. Ciyaaristiisa ayuu kasoo bilaabay 1998 ilaa 2000 kooxda West Bromwich Albion ee ciyaarta heerka labaad ee Ingiriiska. Premier League waqti waxaan kusoo qaadatay 47 gool ayuu ciyaar 5 gool u dhaliyay. 2004 Juventus ayuu qayb ka ahaa 37 gool oo ciyaaray 4 gool ayuu dhaliyay. Qaab amaah ayuu ku aaday Bologna 2000 ilaa 2001. Markale Pizenga ayuu ku aaday si amaah u ciyaaray. Fiorentina qayb ka ahaa 2004 2005 ilaa 2009 keena kooxda Sevilla Spain ayuu waqti waxaan ku ciyaaray ama waqti waxaan ku qaatay 6 kun ayuu ciyaaray 13 gool dhaliyay. 2009 ilaa 10 Olympiacos ayuu qayb ka ahaa 12 Malaga 14 Sampdoria 14 ilaa 16 Palermo 16 ilaa 17 Hellas Verona. waana macalin garoomada waqti waxaan kusoo qaatay khadka dhexna ku wanaagsanaa. heerka qaranka ma ahayn macalin xulka Talyaaniga ka helay boos joogta 15 jirada ayuu soo ciyaaray 95 ilaa 20 jirada ayuu qayb ka ahaa 2002 ilaa 2000. waana macalin dhanka qaranka fursad badan helin. dhanka maamulka ayuu soo dalaxay 2020 ilaa 2020 City ayuu qayb ka ahaa 2020 Parma ayuu aaday 23 dabacooyinka ayuu qabtay wuxuuna u suurageliyay inay ku guuleystaan horyaalka heerka labaad Championshipka una soo dalacaan horyaalka Premier League. guulahaasi kadib waxaa aragtay kooxda Chelsea oo inta badan dhiigeedu ku jira Talyaani maadaama macallimiin badan Talyaani ay kooxdu ka soo shaqeeyeen. waqtigan shaqada ayuu qaban doonaa kooxda Unusis u saxiixay. Enzo Maresca ayaana inta badan saxaafaddu ku tilmaamtay macallin aad u wanaagsan wata falsafada Pep Guardiola maadaama ka soo shaqeeyay macallinkan xilliga uu joogay kooxda Manchester City. waa Enzo Maresca. Maresca ayaa guursaday Maria Jesus Parentin iyadoo u hayso waqtigan 4 caruur ah. hogaamiyahan ayaa noqon doona macalinka kooxda Chelsea la sugi doono inuu waxba ka bedelo maadaama kooxdan ay soo qaadatay ciyaartoy aad u fara badan. Pochettino uu noqday macallin aan wax badan kusoo kordhin ka oo fahmi waayay qaab ciyaareedka kooxda Chelsea doonayso. sheekada macalinka halkan kusoo xiri doonaa maxaad ka rajeynaysaa Enzo Maresca?